بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. dhammaantiin waan idin salaamayaa dadka ku xiran barnaamijkan tarbiyadda caruurta. Arrintan tarbiyadda caruurta waa arrin aad iyo aad u muhiim ah, waana arrin dadka Soomaalidu runtii ay ka seexdeen. Run ahaantii aniga horta magacayga waxaa la yiraahdaa Muuse Siciidow Muuse, dadkiina aan aqoon. Barashada tarbiyadda caruurta oo casriga ah iyo midda diinta islaamkaba waxaan bilaabay 1994 markaas ayaa ahayd markii ugu horeeyay oo aan maaragtay arrintan ku baraarugo. ilaa waqtigaasna waxaan ahaa aabe xiiseeya bartana qaabka casriga ah oo ilmaha loo koriyo, diinna loogu barbaariyo. Maasha Allah, guulo fiican ayaana ka gaaray. Runtii waxaan jeclahay waalidiinta Soomaalidu inay barnaamijyadan ay si gaar ah u eegaan kana faa'iideystaan. maanta waayadaas fursad uma aanan haysan marka aan ku baraarugay oo bilaabay barashada tarbiyadda caruurta aan dadka ugu soo gudbiyo aqoonta aan u leeyahay. laakiin maanta fursad ayaan u helay. waxaana arkay in isticmaalka baraha bulshada Soomaalidu aad ugu soo badanayso. Facebook oo kaliya ayaa waxaa lagu qiyaasaa dad 1 milyan iyo bar Soomaali ah inta u diiwaan gashan Facebook inay Soomaali yihiin, inay ku jiraan oo baraha bulshada daily u isticmaala, joogta u isticmaala. 1 milyan iyo barkaas milyan kale baa raaci kara oo dad Soomaali ah laakiin jinsiyada kala wata ama ay u qoran tahay inay meel kale joogaaniin. waayo dadka Soomaalidu goostay buuxinayaaniin Facebook profile-ka ay magacooda iyo meeshii joogaan ku qoraaniin. qof Soomaaliya jooga wuxuu iskaga qoranayaa inuu joogo maaragtay London oo kaleeto. waxaan qiyaasayaa ilaa 2 milyan iyo bar inay Facebook isticmaalaan, YouTube-kana intaa in ka badan inay isticmaalaan ama ku dhow. sida aawadeed waa muhiim in aynu baraha bulshada u isticmaalno, inaynu isugu gudbino wixii aqoon ah oo aynu leenahay oo ku saabsan tarbiyadda caruurta. dadka Soomaalidu runtii way yaqaaniin baraha bulshada qaabka loo isticmaalo, laakiin waxay u adeegsadaan barnaamijyo maaragtay cay ah, qabyaalad ah, dad 24 saac ay tamaya waxa arkaysaa dhowr boqol oo kun oo qof daawanayso. waxa kaliya oo qofku haysto waa waqtigiisa. waqtiguna waa shay aad qaali u ah. waxa wanaagsan qofku inuu uga faa'iideysto wax cilmi adduun iyo aakhiraba anfacayo waqtigiisa, uusan wax maalaan yacni ku dhimin, khaasatan dhalinyarada. barnaamijkan marka tarbiyadda caruurtu waa mid anfacaya xataa dhalinyarada aan guursan in ay bartaaniin. waayo inuu guryaheena kalama nimaano qaabka ilmaha loo tarbiyadeeyo aan ka ahayn wax aynu karahsano oo ah dilitaan iyo qallooc iyo dhibaato tarbiyadda caruurta maaragtay la xiriirta oo waalidiinteen ay soo sameeyeen. waalidkeen dambi kuma laha dabcan, sababtoo ah iyaga waa aqoonta kaliya inta ay garanayeen. laakiin maanta waxaa loo baahan yahay isbeddel kacdoona oo xoog leh oo ku saabsan dhinaca caruurta aan u barbaarino inaan samayno. haddaan Soomaali nahay waynu jecelahay caruurta in la dhalo, laakiin runtii ma naqaano qaabka loo koriyo. waana arrin waxa ay tahay nasiib darro. sida aawadeed waxaan ugu baaqayaa dadweynaha Soomaaliyeed anoo aan u eegayn deegaan ay degan yihiin ama meel ay joogaan, dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla inay barnaamijkan ay ku soo biiraan. waxaana samayn doonaa dad badan oo aqoon-yahana oo ay gala qayb qaato arrinkan in lagu baraarugo baa loo baahan yahay. caruurta waxaa la rabaa in dilitaanka maaragtay laga gooyo. dhowr bilood ka hor ayaan waxaan furay barnaamij la yiraahdo tarbiyadda caruurta, Facebook-gan aan ka furay. maanta wuxuu marayaa dad 11 kun oo qof ku dhow baa maaragtay aad u intarasaareynaya oo raba. dad badan oo casharo yar ilaa 3 cashar oo aan ka bixiyay ka faa'iideysteen kaale arag maaragtay sida ay u amaanayaan iyo wixii ay ka faa'iideen. waxaa loo baahan yahay caruurta inaynu u soo jeensano. haddii jiilasha soo socda aynu bedelo, dalkuna wuu inoo hagaagayaa, waa uu isbedelayaa. maaragtay uma dul qaadan karo ilmaheena oo intaynu korino marka uu fasalka 8aad ama secondary-ga fasalka 1aad soo gaaro iskuulka ka saaqida, jaamacad geli waaya, akhlaaqdu ka xumaato, aakhirka intuu qori qaato dadila. wax loo dul qaadan kara ma aha. ilmaha akhlaaqdiisa waa aynu bedeli karnaa, tarbiyadiisa waa bedeli karnaa, laakiin waxa muhiim ah marka horeeto inaga waalida inaynu isbedelo oo marka horeeto marka aqoontii aynu yeelano. sidoo kaleeto waxa aan ku soo darnay barnaamijka kanaal wuxuu yahay YouTube-ka ah oo isagana aad hoos linkigiisa ka helaysaan. waxaan jeclahay dhammaan dadka bogga tarbiyadda caruurta ku jira inaad subscribe tiraahdaanin oo ku soo biirtaan. waayo YouTube-ka waalidiin fara badan ayaa waxay naga soo codsadeen in Facebook-ga muuqaalada iyo qoraaladuba ay kaga dhex dhumaan. waayo dadku ma wada isticmaali yaqaano oo maaragtay waxyaabo kaleeto ay soo korsuuraan oo aysan helin. dad ba aniga laftigayga waqtigii iga qaaday oo waxay soo weydiiyaan casharkaas xagee ka helaa. waxay noqotaa inaan u koobiyo oo u diro. sida aawadeed baan waxaan samaynay YouTube-ku wuxuu ku fiican yahay janaalka. hadduu qofku tago kanaalka wuxuu helayaa casharadii oo silsilada ilaa hadda dhowr 4 cashar meelaha ayaan gelinay.
sidoo kaleeto waxaan samayn doonaa mustaqbalka barnaamijyo ballaaran oo wixii barnaamij cilmiyeedyo sida midaan dhowaan soo gelinay oo kaleeto oo caruurta daraasada aqoon laga ogaado oo caalamku inagaga horeeyo inaan inta afka Soomaaliga u turjumno aan maaragtay dadka Soomaalida aan uga faa'iideyno sidaa aawadeed baan waxaan idinka dalbanaynaa in dhammaantiin aad subscribe tiraahdaanin oo ku soo xirantaanin YouTube channelka insha Allah kulligeena waynu kala faa'iideynaa caruurteena waynu bedelaynaa haddii caruurta akhlaaqdooda aynu bedelo oo tarbiyada casriga ah oo diiniga ah aan qaadano guryaheenu waxay noqonayaan guryo xasiloon caruurteena waxay noqonayaan caruur adduunka iyo aakhiraba in anfaca inta ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaantiin aad ayaad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad tagto kanaalkeena YouTube-ka oo ah tarbiyada caruurta hoosna linkigu ku qoran yahay oo aad subscribe dhahdo insha Allah si aad muuqaalada hadda kadib ugala socoto waadna mahadsantihiin